waa inaad noqotaa qof go'aan leh xitaa haddii aad xaalad adag la kulanto waa inaadan isdhiibin. haddaba maanta waxaan idiin soo gudbinaynaa qaar ka mid ah dad aan hamigoodii ka niyad jebin. Samuel Colbilla waxaa la dhihi karaa waa mid ka mid ah shakhsiyaadka ugu tusaalaha fiican, isagoo aan haysan wixii uu u baahnaa haddana kuma uusan fikirin in uu samaysto wax marmarsiyo ah. ninkan wuxuu u dhashay dalka Ghana. markaad aragtid muuqaalkiisa waa mid jir ahaan dhisan, wuxuuna qaadaa biraha culus, laakiin ma ahan mid haysta qalabkii casriga ahaa ee jimka, ee waxa uu ku sameeyaa qalab uu isagu samaystay oo ah alwaax iyo biraha taayirada, kuwaasi oo uu isticmaalo jim ahaan. waxa uuna ka fog yahay magaalada uu ku yaalo jim casri ah, waana shakhsi danyar ah oo waxba aan haysan. waxa uuna samayn jiray tababar inta badan waqtigiisa, isagoo oo qaadi jiray biro culus. maalinba maalinta ka dambeysa culayska uu qaadayo ayuu sii kordhi jiray. waxa uuna jirkiisu noqday mid si dhaqsi ah ku dhisbay, mana ahayn mid isticmaali jiray jadwal toos ah marka uu sameynayo jimka, laakiin isbuucii hal mar ayuu samayn jiray tababarka murqaha lagu dhiso. mararka qaarna waxa uu samayn jiray maalinkii 2 mar. sidoo kalena waxa uu inta badan ka shaqeeyaa dhismaha, mararka qaarna fursad uma helo jimka. isaga iyo asxaabtiisa waxay ahaayeen kuwa tababar sameeya. haddii uu haysan lahaa jimka saxda, si fudud ayuu ku sii samayn lahaa horumar. Ivor Zidesky waa maskaxdii ka dambeysay aasaaska shirkadda Ivor Pro Corporation, taasi oo ah mid laga leeyahay dalka Mareykanka, soona saarta diyaaradaha helicopterka iyo waxyaabo kale. ninkan waxa uu caan ku noqday kaliya maahan intaasi, sida ay sheegtay Daily Mail. waxa uu ahaa mid ku bartay dalka Czechoslovakia cilmiga injineeriyadda saadaasha hawada, wuxuuna ka shaqayn jiray dhanka nashqadeynta, laakiin xaaladda waddankaasi uma suuro gelin in uu bilaabo mashruuciisa u gaarka ah. kadib waxa uu codsaday fiiso uu kaga baxo dalka, laakiin waa laga diiday codsigii. ninkan isma dhiibin, waxa uu ku fikiray xalkii uu kaga bixi lahaa waddanka in xuduudda laga gudbana way adag tahay. kadib waxa uu go'aan ku gaaray in xuduudda uu dulimaad ku maro, isaga oo samaystay hang gliding. waxa Soomaali lagu dhaho ma garanayo, laakiin waa wax ka yar helicopter oo uu isticmaalay matoor gaari. sanadii 1984 bishii Agosto, saacadu markay ahayd 3 subaxnimo ayuu xuduudda ka gudbay, isaga oo tegay Australia caasimadeeda Vienna, halkaasi oo weydiistay magagelyo. waxa uuna diyaaradii ka iibiyey madaxaf ku yaala Jarmalka. kadib waxa uu aasaasay shirkad uu leeyahay isagu, halka sanadii 1997 uu u guuray dhul deegaanka ka fog oo meel bannaan ah si uu u hormariyo mashruuciisa diyaaradaha, kana bixiyay dhulka lacag gaaraysa $99,000. hadda waxa uu leeyahay xarun aad u weyn oo laga hago diyaaradaha. fikradiisina waxay noqotay mid weyn oo shaqeysa. Christina Ha waa gabar u dhalatay dalka Mareykanka. sanadii 2012 ayay noqotay cook professional ah, iyadoo uu caawin jiray saygeeda. Christina aragga ayay la adahay oo xanuun ku dhacay ayaa indhaha ka riday, waxayna jaamacadda dhamaysay iyadoo jirta 20 sano, laakiin ma aysan noqon mid ku shaqeysa cilmigii ay baratay maadaama ay aragga beeshay. qof kastana waxa uu leeyahay hami iyo wax uu jecel yahay in uu qabto. gabadhani waxaa ka mid ah waxyaabaha ay jeceshahay wax karinta, iyadoo markii ay hawsha qabanayso u isticmaasha taabasho, urin iyo dhadhamin intaba, waxayna wax u karisaa si wanaagsan. mana ahayn mid weligeed galaas u fariisatay ama baratay sida loo kariyo cuntooyinka professionalka ah. Christina sheekadeeda kaliya ma ahan mid ka guuleysatay shakhsiyaad kula tartamayay cunto karinta, ee waxa ay ku guuleysatay qofkii ugu horeeyay ee araggala oo ku guuleystay cunto karinta. kadib markii ay ku guuleystay cunto karinta, waxa ay daabacday buug, wuxuuna ka mid noqday buugaagta loogu iibsiga badan yahay dalka Mareykanka. haddana sanadii 2013 waxa ay ku guuleysatay 5 cunto kariye ee ugu sarreeya dalka Canada, iyadoo dad badan isweydiiyeen su'aalo: sidee cunto kariye araggala uu wax u sameynayaa, iyo sidee taabashada wax ugu qiyaasaysaa? Usto Gallego waxa uu dhashay sanadii 1925, wuxuuna ka soo jeedaa dalka Spain. ninkan ayaa la yimid fikrad taas oo u ahayd mid muhiim u ah isaga, wuxuuna go'aansaday in uu guri qasri ah ka dhiso dhul ay lahaayeen waalidkiis. mana uusan u baahnayn injineer u dhisa dhismaha oo ka qaata lacag badan,
isaguna aqoon uma lahayn dhismaha, laakiin ma uusan kala jeclayn waxa uu sameynayo. Mana lahayn mashruuciisa wax qorshe ah, wax kastana isaga ayaa qabanayay. Waxa uu fasax ogolaansho ka helay maamulka magaalada in uu dhisto dhulka uu leeyahay. Waxa uu bilaabi jiray shaqada 3 subaxnimo isagoo shaqayn jiray maalinkii ku dhawaad 10 saacadood marka laga reebo Axadda. Waxaana caawinayay ku dhawaad muddo 20 sano ah ninka lagu magacaabo Angel Lobos oo ay ahaayeen deris. Sidoo kale waxaa si bilaash ah mararka qaar ula shaqayn jiray wiilal uu abti u yahay. Mararka qaarna waxa uu la tashan jiray khubarada wax nashqadeeya isagoona dhisayay qasrigan muddo ka badan 50 sano. Waxa uuna jiraa haatan 94 sano, welina ma uusan joojin qorshihiisa. Ambilis Snyder. Haddii aad guul ka gaartid xirfad shaqo, maalin maalmaha ka mid ah ayaad weyn kartaa xirfadaasi. Micnaheeduna maahan in aad isdhiibtid. Qaar ka mid ah shilalka baabuurta waxa ay sababaan in aad raacdid kursiga curyaamada. Gabadhan 2010kii ayay gashay shil baabuur oo aad u xun, kaasi oo ay ku noqotay naafo. Hadda waa farda fuul, markii la saaro faraska suuman ayaa loo xiraa. Wayna ka adag tahay koontaroolida faraska, mana ahan mid ka dhacaysa marka ay saaran tahay. Halka dad badan oo lixaadooda qaba inta ay qalqalaan ay ka dhacaan faraska. Laakiin gabadhan ma ahan mid isdhiibta. Ka hor inta aysan shilka gelin waxa ay ku guuleystay championship. Markii ay dhaawacantay 4 bilood kadib waxa ay dib ugu soo laabatay farda wadida, iyada oo sii waday tababarka fardaha. Gabadhan ma ahan dhiirigeliye caan ah oo dadka fagaarayaasha kula hadla, laakiin hal mar ayaa muuqaal laga duubay iyada oo saaran kursiga naafada. Markii ay dhaawacantay kadib meeshii ayay ka sii waday farda wadista iyada oo ka qayb gashay tartamo badan oo kala duwan. Sheila Hill. Haweeneydan waxa ay ku soo kortay deegaan ay ku nool yihiin dad sabool ah oo ku yaala gobolka San Francisco. Wayna ka tagtay iskuulkeedii, mana aysan ku baraarugsanayn muhiimadda ay leedahay waxbarashada. Laakiin markii ay hooyo noqotay ayaa fikradeedii isbedeshay. Wiilkeeda ayaa su'aalo weydiiyey sababta uu iskuul u aadayo. Hooyadiisba iyadoo waxba baran ayay nooshahay. Su'aalahaas iyo kuwo kale oo la mid ah ayuu isweydiiyey. Kadib waxa ay isweydiisay sababta dumarka intooda badan aysan iskuulka u aadin, iyadoona go'aansatay in ay aado iskuul la yiraahdo 5 Keys si ay u barato akhriska iyo qorista. Hay'addii iskuulka ay dhiganaysay gacanta ku haysay ayaa dadkii siisay fursad waxbarasho. Kadib haweeneydii iskuulkii waxa ay u noqotay wakiil. Waxayna bilowday inay tagto guryaha dadka deriska la ah ee danyarta, iyada oo ku baraarujinaysa in qof kasta uu waxbarto, qisadeedana u sheegaysa. Waxayna xaafadaha geysay bas casharada lagu dhex qaadanayo. Waad ku mahadsantahay daawashada muuqaalkan. Haddii aad ku cusub tahana channelka maanta, subscribe si ay kuu soo gaaraan muuqaalada cusub. Hana hilmaamin inaad la wadaagto asxaabtaada adigoo share gareynaya muuqaalkan. Mahadsanidin.